kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ee gobolka Buuhoodle ayaa maanta ka furtay xafiiskoodii magaalada Buuhoodle. Munaasabadda xafiiskan lagu furay waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka, qaar ka mid ah sidooyaasha wasaaradaha ee gobolka. Labaad waxaan kale inagu hambalyeeynaa isha horumarka iyo dhalinyarada jiilka inaga dambeeya ay higsanaan inuu la timaadeen. Marka saddexaadna waxaan inagu hambalyeeynaa dhiirigelintii aad u sameyseen xulka gobolka oo ahayd xalay in kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda eegasiyaaba ay sameysay casho sharaf u sameysay xulka gobolka. markii casho sharaftii la isku wareystay ay dhiirigelintoodii dhiibteenna ay mataqaanaa na guddoonsiiyeen lacag ay ku taageerayaan xulka. waxaan leenahay horta dhammaantii waan inaga guddoonay mataqaanaa dhiirigelintana waan inahaynaa mataqaanaa abaalkiinana de waa kolley lama odhanayo anagoo odhan mayna abaalkiinaan gudaynay. waxaan leenahay aragtidiina dheer way fiican tahay halkaa ka wada. marka xiga waan idin mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan ee sportska sida lacag u labisan sida lacag uga muuqato kubaddu iyadoo ay tahay baan u malaynayaa muraayadda Buuhoodle ay maanta ka turjumayso in Buuhoodle wax badan baa laga sheegaa in aan leeyahay Buuhoodle raggaasaa ku nool sida da'yar mustaqbalkooda ay ka soo bilaabeen kubadda. waxaan kaloo mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda. anigu wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ka socdaa waxaan wasaaradda fariin u dirayaa inaan ku dayano wasaaradda maaliyadda. waxaan u leeyahay wasaaradda maaliyadda wasaaradda ugu horeysa xafiis ka furata gobolka Buuhoodle waxay ku xujisay inay tiimku badalsanayso. anigu waxaan hadda marayaa wasaarad ahaan inaan xafiiskii bishan tobnaad ee lagu jirnaa aan magaalada ka furo. waxaan wasaaradda fariin u dirayaa in tiimkii kubadda ay ii soo raaciyaan maaliyadda iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan idin leenahay hambalyo saad u jeedeenba maanta waxaan halka ka furnay xafiiskii kooxda gobolka Buuhoodle. sida hore loo xusayna oo kale xafiisyadii u horeeyay ama xafiiska maaliyadda ha ahaato ama xafiiskan kooxeed ha ahaatee laga furo. waxaan leenahay wasaaradaha kalena ha ku daydeen taas hambalyaanu idin leenahay. waxaan kaloo hadalkan uga celinaynaa wasiirka horumarinta maaliyadda Sacad Cali Shire iyo agaasimaha wasaaradda iyo howlwadeennada wasaaradda sida hagar kala ee ay noola shaqeeyeen in iyadoo weliba aan gobolka Buuhoodle ama magaalada Buuhoodle ayna ahayn cashuur badan waxay ka soo baxdo inay noo hubeen yani miisaaniyaddii jamhuuriyadda Soomaaliland in looga furaan xafiis iyo inay kooxba loo maalgeliyaan aad ugu mahadsan yihiin. muwaadin bixi cashuurta si ay noo helo caafimaad tayan. muwaadin xalaal baa barokowde xalaasho xoolahaaga. muwaadin bixi cashuurta si ay loo helo wadooyin tayo sare leh. Eid Maxamed Gunre, telefishinka caalamiga ah Cable, magaalada Buuhoodle.